tuma gabadha Soomaali Australian-ka ah ee booliiska caalamka ay raadinayaan kuwaas oo loo yaqaan Humble kadib markii ay dhacday wiilal Soomaaliyeed kuwaas oo ku nool dalka Mareykanka. gabadhan ayaa ku soo jiidatay quruxdeeda iyo hadal macaani kadib markii ay TikTok live ka soo gali jirtay kuwaas oo gift u diri jiray ayadana follow back ay dhahday kadib markii ay soo follow gareeyeen una tartameen gabadhan in ay jacayl u bandhigtaan kuwaas oo saddexdooda tartan ay u galeen gabadhan ayadana ay Janice u aragtay kadib markii ay ka faa'iideysatay dhacdayna wiilashan ka dhacday lacag gaaraysa 1.7 milyan wiilashan oo ganacsada ahaa qaarkoodna ka shaqeey jiray meesha hilibka mid ayaa deganaa meesha hilibka Green Airland Nebraska lagu magacaabo kaas oo gacanta mashiinta hilibka lagu jarjara isaga gooyay gacanta una helay magdhow lacag aad u tiro badan kaas oo Janice ay ku heshay dhulkana ay la gooysay iyo mid taraagla ahaa oo taraag driver ahaa iyo mid taraag owner ahaa kaas oo 6 taraag lahaa kadib markii gabadhan ay u tartameen gabadhan ayaa quruxdeedii ku soo jiidatay iyo hadal macaanida taqaana sida ragga jiis looga dhigo dibna loogu dhigo raggan ayay soo fariisisay zero ayagoo ah ganacsade ayay barteen gabadhan kadib markii tartan waali ah ay u galeen tartankaas oo aanan ahayn shukaansi afka ah ee ah shukaansi jeebka ka hadal ayaa la dhihi jiray kadib markii follow back lis dhahay luuqan liskala hadlay la kala qaatay contact number la sheekaystay lis shukaansaday shukaansigaas oo u dhacayay sidatan kaas oo jeebka laga hadlayay ninba ninkuu ka lacag badan yahay sheekada xaggiisa u badneed raggan ayaan ku fiicneen xagga shukaansiga balse ku fiican sida lacagta loo bixiyo raggan ayaa midna ku dhacay strow midna hooyadiis ay degan tahay xerada qaxootiga ee loo yaqaano Nakefali midna ka soo dhoofay Kakuma 2009kii bisha 9aad 14keedii kaas oo tagay dalka Mareykanka kadib markii uu taraag driver noqday kana shaqeynayo muddo isu bedelay ganacsade lehna 6 taraag kaas oo dhulka lala jaray zero-na soo istaagay haddana ay ku daadsan tahay waxa uu qabto email uu ka bilaawana garanaynin kaas oo xanuun ku soo booday kadib markii gabadhu shukaansanayay isna dhahayay waad ku guuleysan doontaa ee hal mar zero u soo baxday kadib markii saddexdan rag ayaga tartan galay lafahooda ay u tartameen kuna tartameen jeebkooda balse soo istaagay maanta zero gabadhan furatay ganacsi kaas oo loo yaqaano real estate agency kaas oo ka furatay dalka Kenya gabadhan ayaa ku dhalatay dalka Kenya ku barbaartay Kenya ku guursatay Kenya u dhooftay Australia u dhoofiyay ninkeeda ka dhalay 2 caruur kaas oo maanta single tahay degan tahay in Australia khaasatan Melbourne raggan ayay Janice ku heshay isna tiri maanta riyadaadii ayaa ku rimowday mar haday aragtay gabadhan oo tartan loogu jiro istiri raggan cadaab dhulkana la jar ayadoo single mother ah haysatana 2 caruur deganna Melbourne ayagoo degan Mareykan ayay qabatay dhulkana la jartay ayagoo wiligood face to face u arkin bes liska wacaya telefoon kaas oo laga hadlayo bis account number iyo lacag la isku diray maadaama ragga ayagaba aysan aqoonin shukaansiga bas ay ku fiican yihiin sida jeebka loogu hadlo gabadhan ayaa ah gabar aad u qurux badan taqaan sida ragga dhulka la isugu dhigo hadalkana loogu macaaneeyo balse waxay isku darsatay qurux iyo hadal macaani dhulkana la jartay dhigtayna meel ay ayaga u qalmin raggan oo ganacsada ahaa haystayna lacag fiican mid gacantooda wuxuu isaga gooyay mashiinta lagu jarjaray hilibka kaas oo magdhow u helay lacag aad u fiican balse maanta soo istaagay zero kuna dhacay strow cudurka loo yaqaano balse waxaan ka qaban karaa anigu ma aqaano gabarey ragga saas looma galo haddii Janice heshay raggan ay ku soo tartameen balse aad soo istaajisay zero at least wax yar baa u reebi lahayd oo businesskooda ay ku sii aasaastaan raggan xanuunka ku soo booday ayaa gabadhan Janice ku heshay dhulkana la jartay ayadoo u qabtay cadaawad ragga ayadoo ah single balse aan lisdhehaynin qofkii arka qoftan ayaa single ah ama horay caruur u dhashay kadib markii qurux ilaahay siiyey balse gabadhan ayaa ah gabar aad u caqli badan ku kortay Kenya ku dhalatay Kenya ku guursatay Kenya ka dhooftay Kenya aaday Australia dhoofiyayna ninkeeda balse tan dhacday ayaa ah inay raggan Janice ku heshay dhulkana la jartay waa waxaan anigu fahmi waayay garan waayay ku wareeray qaabkay ku dhacday inay raggan tartan u galaan gabadhan dhulkana la goyso
balse nasiib darada dhacdaa waxay tahay in gabadhan ganacsi popular ah u furan yahay leedahayna villooyin aysan weligeed ku riyoonaynin balse maanta tahay qof ganacsada ah lehna villooyin ayada ay leedahay una furan yahay real estate agency taasoo ay ka samaysay lacag waalan kadib markii ceel uu u khotmay ayadoon filaynin isaga jirta live tiktok rag baa libaaxyo ku garaacay balse maxaa dhacay in kontakta la kala qaato jisna liska dhigo iyadoon weligeed lis arag dhulka laysugu dhigo balse gabadhan ayaa naqatay taajirad isnacday kadib markii afkeeda ay ku qaraabatay iyo quruxdeeda waa waxaan garan waayay aniga raggan lacagta meel ay kala geeyaan garala waalidkoodana aanan u diraynin balse ayaga hadda xanuunsan xanuun ku soo booday waxay qabtaana garala meel ay ka bilaabaan garala ayaga loo dawara maanta rag la baryi jiray la saxaadi jiray shalay maanta ayaga saxaata maayo kadib markii jaanis ay ku heshay